dad badan kuwa waaweyn iyo kuwa yaryar waxay dareemi karaan mushkilada galmada inta uu nool yahay. tani waa caadi badanaa. mushkilada galmada waxay baaba'aan muddo kadib. waxa badanaa keena warwar, xanuun, daal, mushkilada xidhiidhka ah. lamaanuhu waxa uu uga fadhiyaa lamaanihiisa waxyaabo kala duwan. mushkiladaha galmada ugu caansani waa rabitaan la-aan, galmo yar ama aynan jirinba. labada qof ee lamaanaha ah ee mid ka mid ah ayaa yeesha rabitaan galmo oo ka yar kan kale. gudaha farjiga oo qalalan. mushkilad inaanay qofka biyo ka imaan bilaa biyo dhac ama in uu qofku degdeg u biyo dhaco. cadaadiska badanaa waxa uu ka yimaadaa murqaha miskiga hoose ee aadkaada damqasho marka uu xubinta taranka gasho xubinta taranka kale. muuqaalada galmada ee badan waa iska caadi inaad daawato, laakiin haddii aad badsato waxay keenaysaa mushkilad. waxay keeni kartaa inaad wax been ah ka filato galmada. waxay sidoo kale saameynaysaa noloshaada bulshada ama waxay ku keenaysaa mushkilad xidhiidhkaaga.